بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواada wararka ciyaaraha fadlan sub sharaab saar jambada fursi aad ku heshaa muuqaal walba aad soo geli dhawaada wararka ciyaaraha ee maanta lambarka uu xiran doono xidiga lagu magacaabo Timo Werner haddii uu ku soo biiro kooxda Liverpool oo la ogaaday kooxda Chelsea oo Real Madrid ka doonaysa xidig laba boos ka ciyaari kara xitaa wada hadallo ayay la furtay kooxda Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay wada hadallo horumar leh kula jirto kooxda RB Leipzig kaas oo ay ku doonayso saxiixa xidiga weerarka ugu ciyaara ee Timo Werner sida ay sheegayaan wararku Jurgen Klopp ayaa Werner ku doonaya inuu ku xoojiyo weerarkiisa xilli ciyaareedka dambe si ay kooxdiisa u sii wadato tartamada koobabka kala duwan ee ka qaybgalayso Timo Werner ayaa heshiiska kooxda Leipzig lagu burburin karaa kaliya lacag dhan 50 milyan oo euro waana lacag ay Liverpool diyaar u tahay inay bixiso wargeyska Daily Express ayaa shaaca ka qaaday in Liverpool haatanba bilowday ka fikiriska lambarka oo xidiga u xidhan doono kooxda haddii uu ku soo biiro Anfield wargeyska ayaa sheegay in ay Reds doonayso inay magaca xidiga ku daabacdo lambarka 19aad oo ah lambar madhan kadib markii uu Sadio Mane ka guuray xilli ciyaareedkii hore kooxda Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay wada hadallo la furtay kooxda Real Madrid iyaga oo ka doonaya xidiga Achraf Hakimi daafaca ayaa 2 sano oo amaah ku qaatay kooxda Borussia Dortmund waxa uu xilli ciyaareedka dhaliyay 7 gool iyo 10 caawin tartamada oo dhan Achraf Hakimi oo ka ciyaari kara daafaca bidix iyo waliba midig ayuu heshiiska Real Madrid dhici doona xagaaga 2022 waxa uu qaab ciyaareedkiisu soo jiitay kooxo badan oo reer Yurub ah kuwaas oo xiiso badan u qaba saxiixiisa wargeyska Mirror ayaa sheegaya in Chelsea wada la furtay kooxda Real Madrid iyagoo doonaya 21 jirka si kastaba ha ahaatee wararka ayaa sheegaya in Los Blancos ilaa haatan wax go'aan ah ka gaarin mustaqbalka xidiga